الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا المسكلة اللي نصر تقلي موضوعا ولا ليال waxaan rabaa maanta inaan idin wadaago qiso aad iyo aad ii soo jiidatay. wiil arday ah oo guursaday haweeney duq ah ayuu guursaday. wiilkan baahida u geysay maxay tahay walaalayaal? gabdhaha way badan yihiin. haddaba dhageysi wacan. qisadan waxay ka dhacday magaalada Jiddah ee Sacuudiga. wiilkii ay ku dhacday ayaa ka sheekeynay, wuxuuna u sheegay nin sheekh ah. ninkii sheekh ah ayaa ka sheekeynay. ikhwaani fillah, magaalada Jidda wiilkan arday ayuu ahaa. kadibna jaamacaddii wuxuu u baahday jaamacad dugsi sare ayuu dhimay. jaamacaddii uu u baahnaa faculty-gii ayuu wuxuu ka waayay magaalada Jidda. magaalooyin kalena wuu ka waayay. waxaa looga sheegay magaalo kale oo dhinaca manaaqib sharqiya dhinaca bariga ku taala ayaa la yiri jaamacadaas waa jaamacada doonaysay. wuxuu bilaabay inuu application u dirsado jaamacadda. waa la soo aqbalay. arjigu ku guuleystay. wuu faraxsan yahay. wuxuu isku diyaarinayaa safar inuu meeshaas aado jaamacaddii. markuu baxay ikhwaani uu meeshii tagay sida uu rabay meesha noqon. magaalo dunsana waaye. magaalo caasimad ma aha. guri badan ma ku yaala. waa meel duur ah. cunto fiican ma laha. cunigii runtii wuu moraal jabay, wuu niyi jabay. haddaba isagoo yaaban oo sida xaaladaas ku jiro ayaa wuxuu arkay laba wiil oo magaaladiisii ka timid, iyagana meesha u joogo waxbarasho oo jaamacadaas ayagana u soo baxday. wuu farxay, xoo niida u degtay. kadibna wuxuu yiri guri ay kareysteen. guri markay kareysteen waxay dhaheen guri aan kareystana lacagtan aan isku darsana. 3 bil kadib, 3 bil markii laga joogo jaamacaddii ayaa isagoo maalmaha ka mid oo u socda masaajidka dhabadana socda ama jidka socda ayaa waxaa ka hor timid haweeney duq ah oo waayeel ah. waa mid qisada ay ku socoteen. wuu salaamay. markuu salaamay kadib ayuu su'aal iska weydiiyey. su'aal oo fani ah ayuu iska weydiiyey. wuxuu yiri ayay su'aal ma ku weydiiyaa? haa. wuxuu yiri adduunka waxaad ugu jeceshahay oo in lagu sameeyo maanta aad u baahanta maxay tahay? waqtigaada hore u tagay wax ku dhimanaa iska yar. inta adduun joogtay ama haddaba wax aad ugu jeceshahay ama wiiliga aad ugu jecleed oo wili aadan helin oo maantana in lagu sameeyo aad u baahanta maxay tahay? waxay tiri wiilkaygiiyo maanta waxaan kaga jeclahay beedka ilaahay inaan soo booqdo oon soo ziyaartay, macnaha aan soo xajiyay. waxaan kaga jeclay maanta malaha. waqtigayga hore u tagay wax yara ii dhiman. intaan yarta ah waxaa maanta aan u jeclahay in xajka aan tagay, laakiin ma aadi karay. sabab ayuu yiri maxaad maadadid? wuxuu yiri maxram malihi oo qof i wada ilaa iska bax maana dumarkee. waa in qof ku wada aad heshaa. qofkii aan haynay tiri aawa dadkaada yiri dadkayga aniga kaliya ka noolay tiri. ninkayga ayaa ugu dambeeyay wuu dhintay. waa nin waayeel, waad garan kartaa. wuxuu isagana waxaa laga yaabaa inuu xajka geen waayey oo inuu oday yahay ama ka horana inay dhaqaale aysan haysaninba. marka waxay tiri odaygayagana wuu dhintay, ehelna malihi, maantana waxaan kaga baahi badan xajkii inaan tagana malihi, maxramna ma haysta. way kala tageen walaalayaal. dhexda markuu sii socday ayuu wuxuu yiri niyow maamadan ma ajar ku raasatid? maamadan waa yeelka ah maad ilaahay dartiis intaad guursatid xajka aad geysid markaad soo noqotid aad iska furtid. arrintii ayaa la fiicnaatay walaalayaal.
markaasaa wuxuu yidhi ayay wax yar suguu yidhi markuu la hadalka lahaa wuxuu yidhi waxaan niyadeyda kusoo dhacday inaan aniga maxram kuu noqdo oon ku guursada xajka markaan ku geeyey oon kaa soo celin isma naqaana diyaar mau tahay raali ma ku tahay waxay tiri nacam raali ka ah wuxuu yidhi ayay si fiican u dhegeysa sheekadan ninkaada ani ma ahaan dooyo aniga dantaa igu qasbaysa moogii oo adigaan ayaan maxay ahayd toy arrintaas markaa i dhahday ayaan markaan arkay dhibaatada aad ku jirtid asxaan adiga aan kuu sameynayo mooyaane wax adiga meeshan hadda aan kaa cunayo ma lahu yiri soo waxa garta ma waxaan kaa cunayo meesha ma yaalaan ee wuxuu yidhi waan ku guursani ilaahay dartiisaan kuu sameynaya arrintan xajka markaan ku geeyana nin iyo naag isqaba ma noqonayn waa kala tegaynaa diyaaran aan wax wiilkaygu arrintaas hadda ii samaysid hadda wuxuu yidhi waqti isii waxaan la soo tashanayaa culumadeen dadaan la soo tashanaya wuu baxay culamo u tagay wuxuu yidhi culamo allahi arrintaana jirta ma samayn karaa maxaad igula talinaysiin waxay dhaheen arrin fiican weeyaan ajar kaga raasa waa ku kac wuu soo baxay ikhwaani fillah markuu soo baxay ayaa wuu u yimid wuxuu yidhi arrintii hadda waa soo dhammaatay wuxuu yidhi in liigu nikaaxa in liigu kaa nikaaxa ayay rabaan waa maadaama dad aysan lahayn culimmadii ayaa walaayadeeda qaaday waa lagu nikaaxay way isguursadeen markay isguursadeen duqdi waa yeelka iyo wiilkii ay isguursanay wuu waday walaalayaal xajka u geeyey xajkii markii uu geeyey ay soo xajisay waa waxay ugu baahi badneede ee markaan waajibkii ay iska soo riday way soo uu soo celiyey magaaladii markuu ku soo celiyey wuxuu yidhi haye hadda ka hor baalinaa dhexdeen taali inaan ku furo ayay ahayd markaas soo noqona waan ku furi waxay tiri garka iyo jilbka ku dhad wiilkaygiyo waan ku bari hay furnay tiri subxaana allah malik alqudus waa duqdii waa yeelka ahayd la jecla waa kaas duqdii waa yeelka ahayd waxay tiri wiilkaygiyo wiil fiican hatay waa ku bari hay furin wiilku wuxuu yidhi niyow markaasaa wuxuu yidhi soo balan dhexdeen ma yaani waa ku baryahay furin wuxuu yidhi niyow culaaska ay kugu haysa maxay maamadan xerageed haddaa iska haysa ma dhibaa jira maya wuxuu yidhi waayo yidhi waa u galaaday wax dhib aan kugu qabo ma laha dacwo ma qabi biil iyo waxaas kaama rabi xerageyga bas haya tiri waayo yidhi wiilka jaamacadiisa iska sii watay magaalada la kala jooga ma uu imaanayo maxaa yeelay naagtan naag ahaan umuusan guursanin asxaan uba u sameynaya jaamacaddii ayuu iska watay 4 sano markay u dhammaatay intaasna uusan u tagin uu bixi rabo markaana oo magaaladiisa uu ku laaban rabay ayuu wuxuu yidhi warniyow duqdan waa yeelka ah yaysan hadhow su-aal kaaga imaanina waa naag aad qabtid waa su-aala kaaga imaan kartee naagtan u tago iska fur kadibna iska bax wuu soo baxay naagtii u yimid wuxuu yidhi ayay dhegeysa 4 sano ii dhammaatay waa laama rabaa aniga marka inaan ku furaan rabaa waxay tiri wiilkayga waan ku baryahay furin ha i furin xeragayga iska haysta wax aan ku haysta mala iska bax wuxuu yidhi haddow marqaateed ka tahay hadhow ilaahay waxay hadhow wixii xaq ah oo ani liigu leeyahay inaad adiga aada dusha saaranaysid ilaahay marqaato ku yahay wax lii qabsanana ma laha waxay tiri wax lagu qabsana ma laha dembi ma lihid anigaa ku cafiyey xeragayga bas un haay meeshaad rabtina iska aad wax dhibaato ma laha wiilkii wuu soo baxay walaalayaal jiddow ku soo laabtay arrintii wuu ogolaaday markuu soo laabtay ikhwaani fillah uu markaan magaaladiisa iska jooga ayaa maalin ilaahay amarkiis haddii muddo sanad ama 2 sano meelaas ka soo wareegatay wiilashii oo jaamacaddii isla dhigan jireen oo ogaa arrintan duqda waa yeelka inuu meesha ku guursaday ayaa maalin la isku soo hadal qaaday oo la yiri niyow meel la isku imaado waa la sheekaysanay markaas waxay dhahay niyow dhageysa ooy maxaa kugu dhacay duqdii ninkii duqda waa yeelka guursanay soo matid adiga duqdii waa yeelka ahayd iyo adiga xaaladiina bal ka warama maxay idin dhaxaysay wax u jiraan duqdii ma la xiriirtaa oo duqdi ma biishawraa hadalla lagu tortooro wiilkii hadalkii wuu saameeyey wuxuu yiri warniyow
duqdaan maad iska furta ood iska soo afjartid maxaaba lagugu ceebeena oo duq waayelo guursad isaan kadeed badana arrinta wuxuu go'aansaday daawadayaal wuxuu go'aansaday inuu baxa magaalada uu taga kadibna uu naagta soo waa markii ugu dambeysay marka diyaarada uu raacay uu bax meesha tagay markuu tagay duqdii dadka wareysay wuxuu yiri duqda waayeel meesha duqda waayeel meeshan joog jirtay maaragtay duqda waayeelka ee goormay dhimatay mar hore 2 sano waa aasanta ikhwani fillah عفوا اقرا النقطة دوقدي وحالي يري الله يرحمك دوقدي وين متي wuxuu yiri wax may dardaarani wax may ka tagtay waxa la yiraahdaa hada doqonatee duq waayeel oo waxba aan haysanin hadad maleynaysa in meesha dhaxal u jira dhaxalaad u socotahay gurigaas doqoshka xun ee degneeda doqoshkaas xun ay ka tagtay ka cadaalday uu soo baxay gurigii oo boolka yaraa ayuu soo galay markuu soo galay wuxuu arkay koob walaalayaal koob oo warqad ay ku jirto warqadii wuxuu yiri warqadan waa inay dardaaran ku qoran tahay laga warqadii soo furay markuu fiiri waxa ku qoran ano hebel oo ninkeyga ah waxaan u hibay dhul oo ku yaala magaalada Jidda ee dhulku leeyahay magaaladaas Jidda dhulkaas ku yaala ninkeyga ayaa iska leh wuu soo qaaday wuu soo baxay Jidda ku soo laabtay maxkamadda aaday dhulkii waa la fiiri meeshuu ku yaala waa la ogaaday ina magaciida diiwaankeeda uu ku yaala waa la ogaaday wiilkii yaa lagu qoray dhulkii markuu qaatay walaalayaal oo loo xukumay wuu gaday wuu iibay ku yimid qanaan 3 milyan iyo 500 oo kun ku iibay oo u dhiganta 1 milyan dollar Mareykanka 1 milyan US dollar cunigi wuu yaabay lacagtii ayada ee dhulka la wareegtay gaankeeda 3 qaybood ayuu u kala dhigay qaybna maamadii ayuu u waqfay qaybna macna qayb aabiis iyo hooyadiis ayuu u waqfay maadaama aabiis uu ku soo dadaalay labada qayb kalena isaga qaatay wiilka ikhwaani fiiri wiilku ugu taajirsan oo noqday taajirnimada wuxuu ku helay mintaqana taajirnimadaas wuxuu ku helay shay ilaahay dartiis uu sameeyay duq waayeel ah niidiis kuma jiro duqdan waayeelka hanti fara badan ku yeelanaysa isma lahayn laakiin ilaahay ayaa u qoray ninkii ilaahay dartiis shay u sameeyay ilaahay abaalkaas u siin mid kale awlaado la tarbiyay ayaan ka qaadanaynaa qisada awlaadaada si fiican hada ku soo tarbiyaysid maxaa yeelay wuxuu leeyahay wiilkan aabaheeya wuxuu ii dardaarmay oo yiri wiilkeygiyo qof dhibaataysan hadaad aragtid wiliga ha ka tagin adigoon garab siinin saas darteed aabahay iyo xaaskeyga ayaan qayb 3 qaybood qayb ayaan u waqfulay maxaa yeelay isaga xataa way ugu soo dadaalay arinta isaga ka dambeeyay haduu si fiican ugu soo tarbiyeen leen maanta heerkan ma gaar leeyno leey Allahu fi auni al-abd ما كان العبد في عون أخيه سأسولي الرسول صلى الله عليه وسلم إلهي كمزولة إنه عاونه وكالميناي ما دام قفك ولا الكيس وعاوناي دقدا وايلك أيو عاوي إلهي إن إسكن هو عاوي معنى هذا معها قفك استوايل إن العالم يالقطالة يالقط من ماشي قفك استوايل العالم ماشي أمتالة لكن إلهي درتي سمرك شيئا أسميسي إلهي وحكا خير بنك وبدلها حتى قصة هالكاسة كل ماتي وإنه كلانك أحياء هذا إله إرادة وحي فائدة كفهمتين سوقرة ولا ليه نجارسي وحن إنك عصنا ولا ليان إنا سبسكرايب سارتان هدي عاد نوع عصبته هدي عاد نرسي جوكتنا لايك تنوصار الله يدين بركية شير نهال سنة ولا ليه نجارسية channel إذن كبركة أو معناها أو وذي كره أنا هو مسوجيريان كأه هو إسرائيل هاي channel مركا قاموا وذي جري وحكوا شقيان أي واحد قبطان مركا عن إسعاوين وعن إسكال ميسنا خير كان عن ولا فافنا هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه